waxaa sharaf weyn noo amaanta inuu nagu soo booqdo noogu yimaado Puntland caasimadda Garowe ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulle Sheekh Axmed iyo wafd ballaaran oo hogaabinayo oo ka kooban wasiiro xildhibaano iyo shaqaale kalaba waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare soo dhawow Garowe waa dalkaagii waa dadkaagii wax ku soo dhaweynayaan aad bay ugu faraxsan yihiin inaad timaado oo ma soo booqato waxaan ogahay inaysan ahayn markii kugu horeysay aad Garowe timaado waqti badan ayaad Puntland timid meelo badan ka duwan aad joogtay waqti badan aad joogtay aad baan u faraxsanahay inoo timaado maanta runtii sharaf weyn bay noo tahay waxaan rajaynaynaa wax badan oo mugdi ah oo soo dhaxgalay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland in boqoshadaadu ay daweynayso ay maaragtay ay u tahay in xiriirkaasi wanaagsanaado sababtoo waxa weeye Soomaali mida oo meel u wada jeeda ayaa dowladnimadeeda iyo gobonnimadeeda iyo sharafteeda ay haran karta dibna ula soo laaban karta sidoo kale waxaan rajaynayaa wax badan oo Puntland ay tabanaysay kana tabanaysay dowladda federaalka inaad u wadid baan u maleynayaa waan saas daraaddeed waxaan rajaynayaa in booqashadaadu ay noqoto booqasho guul ah booqasho wanaag badan dhalisa booqasho isu soo dhaweysa dadkaas walaalaha ee Soomaalida ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare soo dhaw adiga waqtigaaguba أنا الرحيم أولاً أنا كهلا مجا ولالين كيمد مجال مدح المقدسة وفد بلاران وكمدي هاي قدومي كحيان كبرلمانك فدرالك إلى تدبوا وزير وزير هذا حكومة فدرالك هي حلبانا كله هي خبره أقول إنه أديكو كامدة قيبها حكومة يحفظ كرزوارها وحن آد ومهد علينا إياه مدحوينها بنتلان صاحبك ورالك يا عبد الولي سو مقعنا وانا هاي إيوه حكومة برلمانك إيا الشعبك reer Puntland oo runtii maanta tanoo muujiyay meesha ay midnimada iyo qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed kaga jiraan noo muujiyay intaasoo shacab ah oo aan aragnay wadooyinka taagnaa ee airportka taagnaa waxay noo soo dhaweynayaan waxa weeye waa fariin culus weeye waxa weeyaan sida ay u doonayaan Soomaaliya inay midowdo Soomaaliya inay dawlad noqoto Soomaaliya inay horumarto aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shacabka reer Puntland waana ka filaynayo ma aha runtii wax aan qariib nagu noqotay xoogaa way sii badatay runtii farxadda iyadu aad bay u sii badatay inagu waxaan u nimid inaan u nimaano walaalaha iyo reer Puntland dalka iyaga weeye أنا أقول لك أما كنا لا نجري وكش قيس نجري وكش قين نجري مركز أصحاب بدنا وكلايا أهل بدنا وكلايا شقة كلوا إلى الصعدنا وشقي وصيدوا كلوا وحنا مدنيد وناكسن إن عندك كان صوب وقالنا تهلنا وذاقنا يو فكر إنه وذاقنا سيدي قرن كالصومالي لود سلها واحد بنتلان دنت هذا هنا لوجا وضح لها الإسلام اللي لها وحلنا بدنيا دون أحسن إيو خير الرجالين حنجعلنا هاي خير بان ذيك لكم إننا خيرنا الله نقولنا هدي الله يدنا سجاس نزعلنا أنت أصبحت كبحو قل كي أنكني horumar weyn baa laga gaaray Soomaaliya inaan xoogaa yar ka yiraahdo aad iyo aad u fiican waadna ku farxaysaan oo waan ogahay waxaan u sheegahay sidaad ugu farxaysaan cadowga ku habsaday dhulka
إلهي إذن كيسري ونغا يسري هدان ريب بنت الأنهاي عدوي دقال حنبان كوهيني waxaa muuqata in laga guuleysanayo oo cadawgaas uu jabayo howlgalladii ugu dambeeyay oo aad la socotaan oo lagu xoreeyay magaalada Baraawe oo saldhig u ahayd caasimadii shabaabka ahayd ilaa iyo 700 in ku dhow shabaab ah ayaa isa soo dhiibtay ilaa iyo hadda oo runtii soo noqotay oo aan rajeynayno inay hagaagaan oo ay ka mid noqdaan kuwa badanna waa filaynaa sidoo kale dib weyn baa naga haystay nabadgelyada caasimadda Xamar lidikaga sheekeyn maayo sida ay ahayd madaxweyne Cabdiweli looga sheekeyn maayo waa meeshuu joogay ka soo halgamay oo dagaalku kaga jiray laakiin ilaahay ma hadii hadda waxaad moodaa in runtii ay aad u soo hagaagayso marka safarkaanu wuxuu calaamad u yahay bilowga dawladnimada Soomaaliyeed